السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارات قالية كسر دوالة channel كينا AD official. إن بدوان متكمقنين ورتا وحاول كل مقنين وهؤلاء يسكبدن مشغول رج وحسكب بكتا رج شقية هؤلاء دوا يسكبدن ما تو فيديو عندي وده وحويه وفيديو شكا لما شكا هراني دكشيكي وأنا دلوا داعي أو آد لما reality ها لما ديبا فيوس كود آد بيفعناين ولو حق لايك تيجي كومنتيجا دي أنا نقولي أنا نتكهن وأيكتانون ونافتن خير الله هيدي شيء وليجنا سوي ربوغنا أنت مركا كيما دو ما توحان دي هي الشيكو آدي جيا بس جيجو سومالي دنا ولي جد بسولي عشت كون سنال بقول وحي كدم بيه حددا وين عدا يا وحويان ويلي قبل استعلاضي ويدي هور مريا ويدي دول مريا ويلي قبل استعلاضي markay isticmaalaan labada qof markay isticmaalaan waalidka mar walba waxaan kula talinayaa qofku kula yimaada ee uu jecel yahay hadii diintiisu fiican tahay akhlaaqdiisu ma fiican tahay ku dar walow waxba aanu haysan be ilaahay baa wax siinaya sida awgeed waalid labadii qof isticmaala waalidkii awgii iyo isna waayeen una dhinteen oo gudgaleen labada waalidkii waxa ma kordhisan sheekadu saan bay ku bilaamaysaa wiilka waxa la yiraahdaa Axmed inantana waxa la yiraahdaa Sulaykha waxay hayeen laba dhalinyaro aad iyo aad jacaylkoodu meel walba uu gaaray waxay dhigan jireen iskool bay wada dhigan jireen iskoolka markay wada dhigan jireen iskoolka markay wada tagaan waa la sii raaciyaa marka la baxay waa la sii raaciyaa jacayl halka laga gaaray marka la soo baxayna waa la soo raaciyaa isku galaasna way hayeen laba qof oo isku lamaan oo aad iyo aad isu jecel bay hayeen xiriirkooduna aad iyo aad u fiican yahay dadku asxaabta arkaya dadka xaafadu cid walba waa ka warhaysay sidii shay ahaataba labadii qof ay isu jeclaayeen waxay sheekadiiba ay wadaan oo ay xiriirkoodii dhalinyartu labada qof ee dhalinyarada ay wadaan oo kobciyaan oo hadii ubaxyar la isu dhibayo hadii meel laga soo casaynayo iyo hadii meel waad iska taqaanaa ninkii hasaawo garanaya iyo qofkii la hasaawo ma garanaya shay hawsha sidii ku socotay Axmed wuxuu ku fakiray inuu ama uu yagleelay wuxuu ayaamahanba uu naawilay qofku markuu xad xiriir leedahay waxaan kugula talinayaa qofkaad xiriir la leedahay waynaad ka doontaa xiriir guura oo midhiisa la goosto wixii shiriyay xiriirkan in badan baa soo wadeen iskuul waa idila soo maray yaraan waa idila soo maray iminka midhiisi aad goosataano aad isguursataan buu shiri dabadeetana Sulaykha galbaha ka mid ah uu wacay wuxuu yidhi Sulaykha hotelka noocaasan ayaan caawa aanu casho tagaynaa istiyaari arrin baan kuu sheegayaa dumarkuna sidoodaba haddii lagu dhahdo arrin baan kuu sheegayaa waa dee way xiiseeyaan qof walbana warka iska xiiseeyaa sideedaba dabadeetana sidiisay ahayd galab baa la ballamay qoraxdu sii dhacayso waxaan ku leeyahay cawdu dhacayso dabaylaha ninkii hotel wax ka soo cunay baa garanayee saa dabayluhu ay u walhanayaan waa la ballamay meeshii baa la isugu tegey waxay sidii ahaataba sheekadii baa la bilowday sheeku uu bilaabay iska sheekaysteen dhan haysa xaaladda ka waran xiriirkeena maxaa oo mustaqbalaad u haysaa ama maxaad ka rajaynaysaa sidiisi ay ahayd uu sheekadii ugu wadayay sheekadii wada haysteen baabkiisa uu sheegin marka Axmed wuxuu u sheegi doonaa inuu guur la doonayo uu guur u soo bandhigayo siday shay ahayd ay sheekadii wateen bay waxa ku tiri Axmed su'aal ma ku weydiin karaa gacaliya bay ku tiri su'aashaas markay weydiisay ay ku yiri su'aasha maxay noqon kartaa gacaliso misay ku tiri waxay noqon karaysaa hawshan igu yeedhay ilaa awalba waan iswareysan jirnay oo sida waynu samayn jirnay wixii aad igu yeedhay tiri waan kuu sheegayaa waan kula wadaagayaa maxay yihiin wuu aamusay waxaad iga qarisaa jira gacali misuu ku yiri may gacalis waxba kaama qariya laakiin waxaan kuu sheegaya waxa weeyaan waan isguursanaynaa waxaan doonay inaan iskuursano heerkiina u tago hawsha sidaas lagu dhameeyo odayaashayda soo kacaysto way qosashay farxadan weligeed aan ugu aragay reyn waayo qofkaad jeceshahay markuu guur waa wax qof kastoo dhalinyaro ah guur ku fikira nin iyo naag oo dee waa waxa nolosha aad ka rabtay inaad u badna aad dhasho dee jacayl iyo lamaane qof nolosha kula wadaaganaad hesho qof aad ku jecel inuu guur kuu soo bandhigaa waa waxaad sugaysa waayo dadka badanaa jecel jacayl xaasid baa hela qaar waa la kala kaxeeyaa oo dadka waxbaa soo dhex gala qof baa iska hinaasayaba hadduu doono jacaylka intuu ka tambato
aduu markuu hawshii yaanan hadal isku daaline markuu hawshii u sheegay haye bay tiri heerkeeda aanu tegayaa adiguna heerkiina u tag mid baan idka ilaaway wiilku waxaa wiil agoona hooyadii baa soo korsatay dabadeetana galabkii saasaa la isku ogaaday waa la kala tegay waa la kala hoyday subaxiiba hooyadii u sheegay inuu hooyadiiba u tegay wuxuu dhahay hooyo maadaama aanu aabba lahayn waa inuu hooyadii u sheegaa marka hore hooyadii markuu la wadaagay ku yidhi hooyo saasaa jirta inaan guursadaan doonaya dee iskuulkiina waan dhammaynayaa ee dee sheekadu ka war waaba laga sii hordegayba saaxiibka waxaa la yidhi waa hawsha waan ogaa inaad wiilkayga agoonaad ahay waa guurka inaad doonayso waan iska ogaabo inan habaritaan dhashay baan kuu dooray waana diyaarba inankay afku qaso hooya leetaa ku ciirtay wixii waxaa la yidhi markaad bada aanan lahayn aad gasho wixii kaaga soo noqda u diyaar garow kawdhe dabadeetana inanku waa yaab saas weeye hooyo maya sidan maaha anugu inan baan jecelahay waa kan inantaa inaan raacaan doonayaa sheekadii uga dhaca islaanta waxaa ma maqlaysa dee dadka badanaa dadkeena waaweyna aada waxay u jecel yihiin dadka faamiliga inay isku daraan oo haddaad dib ugu yaraa fiirsato badanka qof walba wuxuu uu xiriir la leeyahay qof ay wax isu yihiin waana mid aan la diidayn maaha waa mid fiican oo dee labada qof inay isdoonayaan baa horta ka horeysa intaan la isku darin ba aduu hawshii markay sidii ahayd hooyadii uu ka dhaadhicin kari waayay inankii talaa ku ciirtay uu yaabay wuxuuna maxaad samaysaa aduu iska aamusay inankii siday u ahayd islaanti ma ahad subax walba hooyadii uu ku laabtaa hooyo sidan baatid hooyo sidan baatid waa laga waxba waa laga qaban waay waxbana waa laga marin waay dabadeetana wuxuu isiri hal talaa kusoo dhacday mid buu tala mooday inantii ama gabadhii lagu yidhi waa lagugu darayaa habartii ay dhashay ayuu tegay sukuri haane waad ogtahay inaan anuu jecel leeyahay inaan dee qof baan anuu jecelahay inaan guursadaan doonayaa walaalay qaad please guurkana aad waxaad tiraada ma doonayo way fiicnaan lahayd baada inuu sidaa tiraado inantii waxay ku jawaabtay iyaduna ninka yar meel waxaan sidhi inuu dhintaa loogu talagalay markay baashtaa kuu saaran tahay inna kaa qaad mayso dabadeetana waxba yaana hadal ku daaline inantii waxay ku jawaabi doonto waa hadal iga yaabiya aniga waxay tiri walaalow aniguba waan doonayay inaan qof aan rabo aan raaco se laakiin waalidkayga wuxuu igu xojeeyey ducayi habaar haddaad duco qabto bay igu yidhaahdeen ninkaa inankaa laguu soo dooray raac hala diidin haddaad habaar doonaysana na dhaaf kadii ku laabtay inantii markay saa ugu laabtay inankii waa yaab inankii wuxuu shiri war tanna saan bay u hadlaysaa maxaa siiya hal talo shaydaan waa marka keliyu ka faa'idaystaba markaad isku dhex qasan tahay maaragtay wuxuu yihi war hee noloshan sidan bay soo baxa inantiina lagugu dari maayo maxaad samaysaa suuquu tegay wuxuu soo iibsaday sunta maaragtay dooliga ama jiirka saa labadaba loo yaqaan sunta dooliguu soo iibsaday saarabtiisu iska tegay waa isku shubay waa iska seexay dam waa ka dhacay hooyadii baa soo baxday axmedow hooya kac inan baa saas baa waa la arkay dawadiina waa agtaala halkiiba islaantii baroore iyo dhib bay halkii ka aloosatay haddana de maxay faa'iiday sidii ba axmed lagu aasay inantii baa maqashay sulaakha waxay maqashay dhimashadiisi markay maqashay iyaduna suuqay aaday gaas bay soo iibsatay gaastii bay soo qaadatay suuligooday gashay kibriid ama taraq waxaa loo yaqaano waa soo qaadatay gaastii bay ku baadhatay timi laa yacni waa isku shidaysay kibriidkiina ama taraqiina waa shida halkaa maaragtay lugta xaggiisa hoos ay kaga soo qabatay bul inantiina siisaa lagu aasay sheekada dulucdeedu waxa weeyaan ama sheekada ujeedkeedu waxa weeyaan kastoo weyn oo halkan iga daawanaya ama videogaygana uu gaadho qofkaad inantaada ku darayso marnaba dan ad adigu leedahay ha ugu darin so waxaad fahamtay maaha tawfiiq sheekadina halkaasay noogu dhan tahay waxaan aad welibayd ka cudur daaranayaa inaanu ayaamaha videoyaal badan aanaanu idiisoo diyaarin waxaanu idii rajaynaynaa inaanu videoyaal aada u badan aanu idiisoo diyaarno idinka laftarkiina sheekooyin waa nala wadaagi kartaan bartaanu instagramka ku leenahay AJ official snapchatkayga waa nagula soo wadaagi kartaan